السلام عليكم أصحابتي يقول عصب يا أصحابتي كلام هذا يقول عصب تسكريب إيسار لما تذكر إلى شو إسكريب إيسار يقول عصب نوعان يقول يقول من ملا أنتي نبارواي والله واقف فرحين إسكريب إيسارتين لكن فرح داس أنا يا ما أنت فرحة إيه شاء الله ما فرحين حالة مسيحة والله وبالله وطلع حالة مسيحة وحن كسي حواي ونكسي حواي وحي دبعتها قرعين وكجرت ama dawlad xageeda ahaato ama shacab xageeda ahaato ama dadka baahan ee roobabka ku hayaan maxay ahayd gurcaal banaankeeda ha ahaato dadka in la barkeen warka jooga war waxaan joojiyay Soomaali balaan kala deegaysana magaciisa wallahi wax laga xumaado waxa ay gurcaal inuu shalay maanta dagaal ka socdo gobolka galgaduud oo ay isku hor fadhiyaan ciidamada ahlu sunna wal jamaa iyo sidoo kale kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa saaka labada dhinacba ay markaas isweydaarsanayaan rasaas goos ah iyadoo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay ku sugan yihiin badar wan ilaa shaqada hormud meesha ay ku taalo iyo sidoo kale masaajidka munawwar ilaa masjidka jaamac oo bartamaha gurceel ku yaala ciidamo aad u badan ayay markaas ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay soo dhoobeen labada dhinac ee magaalada gurceel laamiga markaas markii magaalada gudaheeda la soo galo labada dhinac markaas laamiga ah ciidamada dawladda gaadiidka ay markaas celinayaan oo dadka markaa magaalada galaya oo ay ogola waxana ay u sheegayaan in magaalada saaka waxa weey dadku aysan markaas soo galin maadaama dagaal culus la filan karayo in xilliga kan uu ka bilowdo u dhaxeeya ciidamada ahlu sunna iyo sidoo kale kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ciidamada ahlu sunna iyagu waxay markaa iyagu ku sugan yihiin xaafado kamid ah tuulo gaban oo dhinaca waqooyi markaas degmada gurceel xigta iyo sidoo kale aaga cali faarax iyo waliba difaacooda ugu weyn ku yaala markaas jaamacadaha iyagoona markaas ciidamadooda halkaas ay godadka qoteen ay ku sugan yihiin gurmadiyana labada dhinac xalay ay u kala yimaadeen waxa kale oo magaalada ku sugan yimina xalay farxaan qoroole oo isagu markaas kamid ah saraakiisha la filayo saaka inay hogaamiyaan dagaalka ka dhici doona degmada gurceel ee gobolka galgaduud maadaama shalay galab dagaal ugu hoobtay labada dhinac markaa khasaare xoog la soo kala gaaray labada dhinac dawladda iyo sidoo kale ahlu sunna uu ka dhacay dad badan ay ku baaba'een isla markaana dhaawacyo badan labada dhinacba xarumaha markaas caafimaadka goobaha ay ugu talagaleen la kala geeyay magaalada saaka waa faaruq wax loo ogol yahay ma jirto dhalinyaro ma jirto loo ogol yahay awal dhalinyarada unbaa joogi jiray magaalada oo markaa xabadu markay bilaabato ilaashin jiray hantidooda iyo sidoo kale waxyaabaha markaa waalidiintooda iyo dadka ehelkooda ay uga tageen laakiin saaka hal qof oo loo ogol yahay ma jiro anigana in la soo hadlay 4 kilomitir magaalada u jira xalay saxdahan ka soo cararay laakiin haddii xabadu dhacdo waa maqli karaya magaaladuna de kulay saaka waxay tahay mid jawiga ay ku jirto jawi ka bedelan ay gashay ciidanka dawladda labada meelood magaalada waa ka joogan waa gooyeen wax dili kara iyo wax ka soo bixi karana ma jirto ciidamadii ahlu sunna iyagana ruuxadooda dhinaca waqooyi ee degmada gurceel ayay ku sugan yihiin saakara waxa magaalada dhici karaysa in dagaal qaraar uu ka dhaco magaalada sida ka warhaydeen daawadayaal waxa jirtay shalay meelo kala duwan oo gubatay isbitaalada gubtay waxa kale oo gubtay ajigiyo iyo sidoo kale baqaaro madaafiicdii waaweyneed ee labada dhinac ay isku adeegsanayeen ay markaas iyagu dabcan waxyeelo ka soo gaartay waxaana markaas dadka ku sugnaa gudaha magaalada ay xalay iyo shalay galab markii xabada cuslaataba ka carareen saaka qof shacab ah oo magaalada jooga waa uu yaryahay inta gudaha markaas iyagu doonaya inay galaan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka celinaya marka halkaan igala soco warbixinada iyo wararka dabcan muuqaalkana share garee waxa ku dhimanaya waa wiil gobolkaas u dhashay inta wiil kala soo duulo imaama waxa idin leeyahay maxay culimada dad leedihiin iyo caamaha dad leedihiin odayaal dad leedihiin joojiyo waxa wadin wallahi wax laga xumaado gobol dhan in la isku dagaalo oo wax dadkaas kala celiyo la waayo oo kala dhex gala la waayo wax laga xumaado maanta wax laga xumaado waayo dadkaas wax kala dhex gala in la waayo maanta aw akhriladoodii aw odayaashoodii aw dadkoodii wardadow dadkiina dadkiisa cishta war nabadgelyada anaga ayadaan ugu nool maahan kuma noolin anaga ku nool ma ayadu naguma noola nabadgelyada anaga gacnaheena inaan dhibaato isku geysan wax laga xanaaqo Soomaaliya waxan bedela Soomaaliya ka waantooba waxan wallahi wax laga xumaado waa in maanta gurceel la isku haysto oo la yiraahdo wiilal cusub
oo gobolada u dhasheen in laysku maanta laysku dhex laayo labada dhinacba sheekh maxamed shaakir waxaan leeyahay walaalkayo diinaad leedahay ka bax gobolkan iskaga bax dadka wiilasha ah ku dhamaynin qorqorna waxaan leeyahay jooji waxa aad wadid walaalow gobolkan waad u wada dhalateen labadiina ka joojiya dhibaatada iyo magaciisa gacna geel jir hoosaa loo dhaqaa joojiya waxaad wadiin joojiya alla ka cabsada ummadda masaakiinta ilaahay uga cabsada dhibaatada gobol ka jirta alla uga cabsada taasaa iga dardaaran ani taasaan dardaarankayga ah guul iyo gobanimaan hadda waxay iska leeyihiin wallaahi wax laga xumaado waa khayrood iga raalo noqdo